haddaan in yar raacsado anigu heesaha aan ugu jecelahay maxamed mooge liibaan waxaa jirta hees la yidhaahdo way iman ayaantu ina mooga sugay maantana inanku adeerka u ahaa ayaa meeyar ah waxaaba laga yaabaa maalintaa uu sugayay inay maanta tahay oo buuggiisii lasoo bandhigayo oo inankii adeerka u ahaa uu magaalada maamulo oo faamilkiisa ay joogaan oo asxaabtiisa ay joogaan oo 2,000 oo qof ay daawanayaan buuggiisii waaba laga yaabaa inay maalinta lafteeda tahay markaa hadda waxaan u yeeri doonaa cabdikariin axmed mooge liibaan عميس دني دني سيدناد مدو عميس دني دني سيدناد مدو ونورو ويو إيو إدليس وحائمان يدو عميس دني دني سيدناد مدو ونورو ويو إيو إدليس وحائمان يدو ina mooga sugayey alla uu ka sugayey بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan ilaahay ka baryayaa in waalidiintay intii dhimatay Allah u naxariisto dambigoodana la dhaafo caawa kuma hadlayo magaca golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo dawladda hoose midna waxa uu jooga walaalkay maayir ku-xigeenka oo aan isaga iyo dumaashadayba uga mahadnaqayo inay caawa nala joogaan waxaan se ku hadlayaa magaca reer mooge gaar ahaan waxaan ku hadlayaa magaca labadayda eedo safiyo mooge liibaan oo halkaa fadhida iyo kinsi mooge liibaan oo halkaa fadhida oo idin hor fadhida iyada oo daawacan bari dhaweyd buu gaari la dhacay qalino badan bay gashay iyadoo oo idin ixtiraamaysa inaad buug laga qoray walaalkeedu ay aad u jeclayd aad u imanaysaan caawa ayay halkaa u fadhidaa waxaan sidoo kale magaceeda ku hadlayaa walaashay yaasmiin maxamed mooge waan iyadu nasiib u helin caawa halkan inay nala joogto iyadana ilaahay waxaan uga baryaa caafimaad nolol wanaagsan iyadii carruurteedaba waxaa sidoo kale halkaa fadhiya walaaladay oo qaarigii waaweyn yihiin oo ay ahayd inay iyagu magaca faamiliga ku hadlaan waxaa fadhiya halkaa axmed xasan cabdi oo eedada ugu xiga oo safiyo mooga ay dhashay waxaa jooga halkaa walaalkay axmed ibraahim maxamed dhegaweyne oo isna eedada kisi mooga dhashay waxaa isna fadhiya xildhibaan mudane golo deegaan cabdikariin xasan cabdigaras halkaa fadhiya waxaa fadhiya isaguna walaalkay maxamed ibraahim maxamed oo ay dhashay eedada kisi mooge waxaa sidoo kale fadhida dumaashiday alla khayra siiyo oo maxamed u dhaxday ayaa iyaduna fadhida waxaa fadhida walaashay Zainab Ibrahim Maxamed dhagaweyne ayaa iyaduna fadhida oo markaa iyaduna wadanka dibadiisa walaalkay Axmed iyo Zainab dibadda ka yimaadeen way iga mudnaayeen iyaga hadina hadlaan laakiin aniga malaa wakiilnimadii la saaray anigoo qadarintooda ku hadlaya baan idin mahadnaqayaa waxaan idinka mahadnaqaynaa in caawa u joogtaan buug laga qoray adeerkay Maxamed Mooge Liibaan inta marka laga yimaado walaalayaal oo dhalinyaro u badan tihiin waxaan idin sheegayaa adeerkay wuxuu dhintay isagoo oo nolol u raadinaya sinaansho raadinaya cadaalad raadinaya mar isagoo Soomaali oo dhan wanaag u raadinaya marna isagoo ummadda reer Soomaaliland madax banaani iyo nolol u raadinaya
adeerkay ilaahay ha u naxariisto adeerkay wuxuu idinku yidhi tolay reer Hargeysow waa maqasheen waa dhageysateen dabeetana dalkiina xoreysateen isagana ilaahay godka ha u nuuro mar labaad buu inanku adeerka ahaa idin hor yimi wuxuu kala doortay inuu yiraahdo tolay qabiilkow iyo inuu yiraahdo tolay reer Hargeysow markaana waa jawaabteen reer Hargeysow waxaana igu doorateen codkii ugu badnaa hadday tahay baarlamaan iyo hadday tahay golo deegaanba waan idin mahadnaqaynaa halkan caawa waxaan isagana mahad aan reer moogo dhan ku matalayo uga soo jeedinaya walaalkay Cabdikariin Maxamuud Xigmaawi inuu tacab iyo juhdi iyo dadaal geliyay in buugga foolaad uu ka qoro adeerkay waxaan ogahay Cabdikariin intuu safar galay intuu socdaalay intuu meelo fog tagay si uu soo ururiyo xogta buugga ku qoran xogaal baanu ahay waanan uga mahadnaqayaa runtii haddii adeerkay jacayl uu jecel yahay buugga uga qoray reer moogana anigoo jacaylkooda matalaya wuxuu yahay mid aanu jecelahay waxaad naga mid tahay annaga waana kugu ixtiraaminaa Cabdikariin insha Allah ta'ala noloshaada adeerkay iyo noloshiisii halganka waxa fadhiyo walaalkii Maxamed Kaahin Axmed isagay nolol iyo duurba wada joogeen isaga inala wadaagi doona insha Allah ta'ala halka ugu dambaysa shalay waxaan la kulmay madaxweynaha qaranka waxa uu ii sheegay inuu og yahay buugga walaalkii in la soo bandhigayo wuxuu ii soo faray fariin ah inuu idin wada mahadnaqayo ina u joogtaan caawa ina kala soo qayb gasheen buugga lagu soo bandhigayo maxamedna runtii madaxweynaha walaalkii oo ka weyn buu ahaa marka salaan iyo mahadnaq saanagu baan idinku mahadnaqayaa wuxuu ka jeclaa caawa inuu nala joogaana ma jirin in hawlaha qaranku waa badan yihiin laakiin wuxuu og yahay buuggan caawa in la soo bandhigayo waxaanu ii soo faray fariinta waxaan jecelaynaa guddoonteen waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddoomiyaha xisbiga Ucud Faysal Ali Waraabe inuu ixtiraamay oo uu yimi Maxamed Mooge buug laga qoray caawana u joogo isagana qoys ahaan si gaar ah ayaan ugu mahadnaqaynaa waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa anigoo magaca qoyskayga ku hadlayo guddoomiyaha xisbiga wadani ahna guddoomiyahayga isagana aad baan mar runtii ugu mahadnaqayaa waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa wasiirka macdanta iyo tamarta waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa walaalkay Jaamac Muuse Jaamac oo runtii ah walaal saaxiib qoyskaygana saaxiib la anigana walaal ii ah dadaalka uu geliyay taariikhdan Maxamed inay soo noolaato iyo sidoo kale tacabka iyo dadaalku geliyay habeenkan inaynu wada joogno sidoo kale shirkadaha oo dhammaan u mahadnaqayaa wasiiradii hore aan u mahadnaqayaa saaxiibada baan u mahadnaqayaa waxaan xusayaa maayir ku-xigeenkii waan sheegay in halkan iyaguna sidoo kale fadhiyaan mudanayaashii golaha deegaanka oo iyaguna caawa marka ay nala joogaan iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaantiin halkan kuma soo koobi karayo mahadnaq weyn oo insha Allah ta'ala aan ku matalay reerkayga iyo qoyskayga ayaan walaalayaal idin soo dirayaa idin soo gaarsiinaya waa mahadsantihiin ilaahayna waxa uga baridaan adeerkay aabahay awowgay ayeeday in ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada geeyo godka u nuuro maxamedna abaalka hal wax baad ugu celinaysaa maxamed moogo wuxuu ahaa nin dadku u siman yahay nin deeqsiya nin haweyn leh nin intiisa yar ay ku filan tahay nin jeclaa inta uu isagu noolaanay in ummadda kala noolaato sifooyinkii wanaagsanaa ee isagu uu lahaa haddaad yeelato abaalkii waad u celisay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Cabdikariin Axmed Mooge